Kim Jong-un ayaa dib fagaaraha uga soo booqday markii ugu horeysay muddo 20 maalmood ah sida ay soo tabisay warbaahinta qaranka Kuuriyada Waqooyi. Wakaalada wararka ee KCNA ayaa sheegaysa in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xariga ka jaray warshada samaysa qalabka bacriminta ee beeraha. Wararka waxa ay intaasi ku darayaan in dadkii ku sugnaa warshada ay aad u farxeen markii ay arkeen hogaamiye Kim Jong-un. kasoo muuqashadiisan fagaaraha ayaa ah tii ugu horeysay 12 Abriil waxayna taasi sababtay in caalamka la isla dhexmaro warar ku saabsan in xaaladiisu caafimaad aysan wanaagsanayn. Wararka la isla dhexmaray ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guuradii ka soo wareegatay dhalashada awowgii oo ku beegnayd 15 Abriil ee aanu soo dhaafnay. Kim Jong-un waligiis kama uusan baaqanin munaasabada xuska awowgii wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qaybgali waayo. Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim. waxaana sidoo kale maalmihii la soo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaas uu galay qaliin dhanka wadnaha ah. waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong-un uu nool yahay. sanadkii 2014 ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 40 cisho ah waxayna taasi keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay. sidoo kale xilligaasi waxaa soo baxay warar kale oo sheegaya in la afgambiyay hayeeshee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaas. haddii ay dhacdo in Kim uu meesha ka baxo sida ay doontaba ha ahaatee ma cadda cidda bedeli doonta. Kim waxa uu xilkaas ka dhaxlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaas waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaas uu yahay mid uusan cid kale damac ka gali karin. gabar ay walaalo yihiin Kim Jong-un oo lagu magacaabo Kim Yo Jong ayaa u muuqata qofka iska leh dhaxalka dalkaas maadaama ay walaalo yihiin aadna ay ugu dhowdahay walaalkeed. waxaa sidoo kale la sheegay in saameyn ku leedahay xukunka dalkaas. taliska dalkaas ayaa ah mid aad looga baqo halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin taasoo yareynaysa wararka laga heli karo gudaha dalkaas.